بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم عن أونكسن دمانتين بها تدوات كان داودي البرنامج كنا وحي لوغو مرتيا نور إسماعيل حرسي وكمدا لنرى أقويانكا خيرسي مالان كلهم مقالة هرقيسا داودي سينو هربا برنامجين هل كان أينو isugu iman jirnay barnaamijkan waa arag dadka aan ku marti qaadno halkan aynu ku qaada dhigno waayahooda nololeed ma aha dad waayeel oo kuwa dhaxdhaxaada kuwa yar yar hasaatee qofku da kasta isagoo ah ayuu waay arag ku noqon karaa qayb noloshiisa kamid ah ama waxa soo mari karta waqti iyo waayeel nololeed oo u gaara oo si gaar xusuustiisa ugu mudan haddaba Nuur Ismaaciil Xirsi waxa uu kamid yahay dadka marxaladaha adag iyo duruufaha iyo waayo khatar ay noloshiisa soo food saareen waqtiyada kamid ah waana arinta waay aragga ku noqday sanadkii 1988 kiisay la socono dhulka Soomaaliland waxa ka dhacay dagaalo isugu horimaadeen ciidamadii siyaad barre iyo kuwa Islam magaalooyin fara badan ayaa burburay dad fara badan ayaa dhintay kuwa ayaa dhaawacmay qaxoontiyaal fara badan ayaa dhacay hawlo fara badan ayaa markaa wadanka ka dhacay waxa garab socday duruufo iyo waayo kale oo aad u tiro badan haddaba Nuur Ismaaciil Xirsi waxa uu ka badbaaday dil noloshiisa khatar ugu galay waxa uu soo galay waayo fara badan oo murugo iyo dhacdooyin badan oo xusuus ku reebay isaga shakhsi ahaan isaga ayaa inooga warrami doona run ahaantii sheeko aad u dheer oo murugo badan oo la soo kulantay balse marka ugu horeysa Nuur Ismaaciil Xirsi bal taariikh nololeedkiisii in yar oo kooban ka yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim ma santa Axmed Xuseen warsame waxaan ku dhashay halaya sana hilaadii 1960 waxaan wax ku bartay bilcaamad quraanti waxaan ka bilaabay Sheekh Xasan iskuulka dhexe iyo hoose iyo sare Hargeysa ayaan ku qaatay diploma Ingiriisiga waxaan qaatay 86 oo Sheekh Braawan ka qaatay ayaan ka qaatay diploma Ingiriisiga Sheekh Braawan oo ku yaal Hargeysa dabadna duruufaha ayaa dhacay shaqadii qaranka iskuulka ayaan galnay iskuulka Axmed Cali ayaan shaqadii qaranka kaga ku qaatay macalinimo markaan shaqadii qaranka dhameysana dagaaladii ayaa ka bilaabmay wadanka waa hagaag Nuur waa lagu xulay xilli dagaal oo ka socday magaalada Hargeysa sidii intii dagaaladu socdeen oo dhan xabsi jeel baad ku jirtay bal waayihii iyo duruuftii aad markaas kala kulantay adigoo naga warrami doona marka ugu horeysa horta goorma lagu qabtay sababta lagu qabtay maxay ahayd halkee laga qabtay waay Mr. Axmed waan ku salaamayaa mar labaad waxa la qabtay maalin Isniina bishu ay tahay 30 bishuna ay tahay May oo maalin Isniin oo galab Isniin oo salaas soo galayso bishu ay tahay 30 bishuna waa May burcana 27 la soo galay oo maalin saddexaadii lagu jiro ayaa la qabtay waxa la iga qabtay xaafadda New Hargeysa kaalinta shukri agtiisa ayaa la iga qabtay aniga iyo saddex nin oo kala aan ahayn waanu yareeyaanay waxaan qabtay nin la oran jiray Yusuf Nigar iyo traffic la oran jiray Shiina ayaan qabtay oo markaa DC ahaan jiray Yusuf waxaan jiray DC Hargeysa Shiina traffic buu ahaa traffic policeman ayuu ahaa marka maxaa ku qabteed sameyseen والله أحمد ودروفها ماشي كتير دجالة صهورة يوم بالله قبت لكن دم بعن كلام مركز متشرون فراك ولا شيء صدق كمية أيه هتباتري صدق كمية دجالك برعو وكان على مركز ولا سكوت لا عدد اللي في السعودية هرجيسنا مركو كل عندنا معلم كهربائي أوكي سلوها تشوي مركز والله بندو بالكتير يعني مقالة هرجيسة واحد بندو واحد مودي سي كبي أهان يعني مقالة اللي هاجرد مودي سرنتي وعلا يهد مقالة لا أدمودا يهد مقالة دنا عمراني هرجيسة مال قف مرة ما دركي مركب على النودي بالبندو ما ستة بندو بلا مش ستة كلام بندو بلا مش مركز ستة كلام نوعي إن شنتي كلام نوع أنا مركز على قبتي شنتي كلام نوع يا اللي قبتي
dabeedna waxa la geeyay nabad sugidda xafiiskii nabad sugidda centerkii nabad sugidda ama headquarterskii nabad sugidda ayaa la geeyay halkee ku yaalay dhakhtarku ka dambeeya dhakhtarka weyne Hargeysa ayuu ka dambeeyaa halka wasaaradda diinta iyo awqaafta ay ku jirtay berigii hore iyo wasaaradda qorsheynta ay ku wada jireen ayay ahayd bartaas ayaana la geeyay aniga oo macawis iyo shaar yar oo asaare loo dhigay gashan maalintaas xusuusteeda ku sii mudan iyo kabada oo furan baa la qabtay gaadha la igu tuuray Niisana dabeedna sidii la isii wada nabad sugidda la geeyay 3 qolo yar oo nabad sugidda ku yaalo sabada ayaana la geliyay oo ay 20 qof ku jiraan baaldigii suuliga ama kaadida uu dhex yaalo biyo la'aantu ay yaraan biyo ay ciriiri yihiin runtii kaadida markay biyo la'aanta tahayna ay halis tahay oo yani ammooniyada ka soo baxaysa qarmuun ka soo baxay oo badan yahay qolku uu ciriiri yahay 1 meter square uu yahay aan daaqada lahayn sabada family lahayn oo ay dadku sidii concentration campskii Jarmalku dadka ku ururinjo kala lagu ururiyay oo qolkii 20 qof ku jiraan daaradana ay fadhiyaan 20 qof oo odayaashii reer Hargeysa iyo odayaashii reer Gabiley ay halka daaradana fadhiyaan ayaana la geliyay dabeedna qolkii la geliyay waxaan ka gartay 2 nin baan ka gartay markaas qolkii la geliyay 2 nin baan ka gartay nin la oran jiray Ismaaciil Raaga Xujure Allah yarxamo uu dhintay oo takar ku naanaysnaan jiray iyo nin kale Cabdullaahi Xaye la oran jiray ayaan ka gartay meesha la geliyay qolka la geliyay dadka aan sii dhaafin daarada ku sii dhaafay odayaasha reer Hargeysana rag badan oo waaweyn oo aan garanayo ayaa kamid ahaa rag badan oo waaweyn oo aan garanayo ayaa kamid ahaa marka dadka maalmahaas baa la qabtay mise qaar baa hore u xirnaa runtii Axmedow horta anigu baa markaa la keenay saacada ka hor waxa la keenay 2 qof oo odayaasha kamid oo waaweyn baa la keenay oo imika inaga hooseeya Allah yarxamo ayaa saacada ka hor la keenay laakiin dadka intiisa badan 85 qof bay ku dhawaayeen ama 86 qof intooda badan bilaa ay ku jireen meesha 86 qof halkaas ku xidhnaa dad caynkii bay isugu jireen wallahi shicib bay ahayn ciidamada way ku jireen Axmedow halkan dadkan shicib bay dhamaantood ahaayeen waxay dad macallimiin ama aqoon-yahanaa waxay ahayn dad ganacsataa waxay odayaal salaadiina ay isugu jireen maxaa lagu haystay markaa simple wuxuu baa lagu haystay inay yihiin macnaha reer inay ka soo jeedaan oo ay taageerayaan islaamta ayuun baa lagu haystay laakiin macna kale meesha yaalay ma jirin nuuriyad ka xasuusan kartaa bal dadkii odayaashii halkaa aad ku xulneedeen waxaad sheegteen 85 qof halkaas ku wada jirteen bal miyaad ka xasuusan kartaa ka sheegi kartaa wallahi Axmedow waxaan ka xasuusan karaa rag badan oo ka xasuusan karaa rag badan oo ka xasuusan karaa waxa kamid ah rag aan ka xasuusan karo Abiib Xasan Filfilni la oran jiray oo wasiir Soomaali wasiirka ganacsiga Soomaali maayirka Gabileyna marhaan jiray Ahmed Jambir Sultani la oran jiray oo isna mar wasiirka arrimaha gudaha soo noqday oo maxaa la dhahay reer Suudaana waxa kale kamid ah in la oran jiray Fuad Sheekh Abubakar Ismaaciil oo imikana jikaakala ay u sheegeen inuu joogo waxa kamid ah Sayyid Ahmed Maxille oo isna reer Gabiley ahaa waxa kamid ah Cabdiraxmaan Faarax Harbiga waxa kamid ah Ismaaciil Cismaan Bakayle waxa kamid ah Cabdi Xaashi Guuleed waxa kamid ah Yuusuf Cabdi Dhagay waxa kamid ah Xuseen Cabdulla Ilaahay oo kaalinta 8 haysan jiray waagaas waxa kamid ah Suudaan Cabdi Sheekh Maxamed oo reer Gabiley oo Sultaan Ismaaciil Abihi waxa kamid ah Xasan Xaaji Yuusuf Rooble oo markaas 8 ka xilligii ka horeeyay ahaa maayirkii Gabiley waxa kamid ah Sheekh Ceel Bardaale loo oran jiray Sheekh Maxamed Raagi Taxood waxa kamid ah Ismaaciil Raaga Xujuri oo takar loo yaqaanay waxa kamid ah Maxamed Ibraahim Waraab Cadde waxa kamid ah Cabdullaahi Jaamac Gacanlow oo agaasimo guud ka aan jiray wasaaradda macalinta iyo biyaha Soomaaliya waxa kamid ah Maxamed Cumar nin loo oran jiray waxa kamid ah Jibriil Taani Geedi waxa kamid ah Ibraahim Huruwa Caynaani loo oran jiray waxa kamid ah Maxamuud Yar oo taksiile ahaan jiray waxa kamid ah Cabdullaahi Xayo oo ariile ahaan jiray waxa kamid ah Saxardiid Maxamed Saciid oo odayaal waaweyn ahaan jiray waxa kamid ah Maxamed Cabdullaahi Qaalib oo ay ilmaade ruma ahaayeen Cumar Arta Qaalib waxa kamid ah nin balaayac soo oran jiray magaciisa inta ka soo koobi karo waxa kamid ah yani nin la oran jiray Xaashi waxa kamid ah nin la oran jiray Daadheere oo dhalinyaro ahaan jiray waxa kamid ah Axmed Xasan oo idaacada ka ahaan jiray farsamo yaqaan waxa kamid ah Axmed Maxamed Baaruud isna idaacada farsamo yaqaan ka ahaan jiray Axmed intaas ka xasuustay idaacada radio Hargeysa way markaan nabad sugidda aad ku xulnaydeen
bal duruuftii iyo jawgii marka halkaasi taalay bal sawir ma naga siin kartaa Nuur ها سوى عمك كاغا سين كرا احمد والله صوركو يعني هدان إمكا يعني صورك إلا حد كسي ديرانو ان صورك هدي يعني كسي ديرانو معناها waxay noqonaysaa sawir aad u qalafsan yani inaynu ilmaynay ku dhawaanaysa laakiin ku sii dheeraan maayo sawir yar kooban baan inaga siinayaa sawirka kooban inaga siinaya Axmed waxa weeye meeshu waxay xilligu waa kuleel buuxa oo may bay hayd tuna ay soo galayso in daaqada malaha family malaha in dagaalkiiba macnaha socdo already gobolada qaar ka socda marka dadku xaaladdu waa xaalad askareed حال أسكريت وصدق كيمي وصدق كلنا كل صدق كنا تقال كقرح دونا تقال كاس لا سقدي دحيه بين كاس أبو قرح دونا با سقدي دحيه لبدي يربع أي أبو قرح دونا هذا كذا الحري بين كنا الحري مركب الله الظروف قلب سن وقرم ويا وحكى الله أركين أي أهيد محل علسين مركز راشين بالدين تري ماشي مسيء أوكي والله يا حمدو إن صدحية توان قراعات وتذكي حافظة ودواء وني لو رنسي يوسف يعني كحسوسن كره حافظيس iyo maxaan aday in Ismaaciil loo oran jiray aan ka xusuusto dadka xaafadooda meelaha ka dhawaayeen quraacii loo keeni jiray 12 quraacooda ayaa loo qaybin jiray 6 qof almost yani xabada waxa ku agaagaysay yani 5 kiga 3 qof bay ku agaagaysay 3 qof ay ku agaagaysay ama 2 qof ay ku agaagaysay xabada marka yani 12 maalmood ugu yaraan ayaan sidaa ku noolayn marka waa quraacdii qada ma laha casho ma laha cashiya qada toona male leeyahay ma lidin siteen jiray no maya marna naloo siteen leeyahay marka saraakiishii markay darsitay ka xasuusan kartaa saraakiishii waxaan ka xasuusan karaa nin la oran jiray khaliif iyo nin la oran jiray shaafi baan ka xasuusan jiraa intee lag bad ku jirteen halkan nabad sugida waxaan Axmed oo ku jirnay 13 maalmood baan ku jiray dagaalkii 17 maalmood sorry 17 maalmood baan ku jiray way waxaad ka warantaa markii idin kolka ku jira habeenimadu dagaalku qarxay bal dareenkiina maxaa iska bedelay jawigiina sidoo noqday wallahi horta aniga runtii waxa igu ahayd habeenka aniga igu naxdinaa way ahayd because waan xidhnaa aniga habeen naxdin mudan baa laakiin dad badan oo meesha igu la xidhnaa yani euphoria muujiyeen farxad caalami muujiyeen runtii aad bay u farxeen rag badan aan garanayo aad bay u farxeen laakiin wallahi aniga runtii shakhsiyan waxay ahayd habeen aad igu naxdin badan murugo badan waan xidhnaa macnaha xirmaan ahayn qoriga hortida la taagnaa markaas yani aniga xaaladigu adag bay runtii ahayd marka maxkamad iyo wax tacawudo la ku qaaday iyo dhigeys maxkamadeed wax la idin soo gudbiyay ma jirin inta halkaad ku xidhnaydeen Axmed oo ma jirin midna ma jirin runtii wallahi ma jirin waa yani summary execution bay ahayd waa gal oo ku quflun bay ahayd kaba bixiya 13 habeen ayaad ku jirteen halkaa 17 walaalo 17 baad ku jirteen halkaad uga gudubteen markaa walaal markaa waxaan loo qaaday aniga iyo 48 kale waan ku jiro malka Durdure meesha waan loo qaaday guriga qaybtii miya guriga qaybta taliska qaybtii ay fooqa gaani lagu sheegi jiray imikana taliska qaybtii Soomaaliland ayaa naloo qaaday marka halkaa markii naloo qaaday gaari nin la oran jiray Xasan Roble irkad balsad horta meesha uga baxdeen maxaa idin ku qaaday sidee halkaa idinkeeyay okay aad bad maasan Axmed aad bad maasan tahay waxaan lagu qaaday gaari TD aha oo watay nin la oran jiray Xasan Roble irkad oo nin reer Hargeysa aha oo lagu shaqaysanayay gaari shabaqla oo TD ayaana lagu qaaday nabad sugida waxa loo dalooliyay guulwadayaasha oo ku jeeda madaxtooyada oo imikana baarlamaanka iyo guurtooda ay ka dhisan yihiin halkaasna laga dusiyay madaxtooyada la hormariyay halkaasna laga qaaday dabadna halkaas ayaa laga geeyay malka Durdure bartaas ayaa laga geeyay malka Durdure iyo gurigii qaybtii halkaasna laga geeyay qaybtii 6aad meesha maxaa kala kulantay halkaas maxaa la yiri wallahi waxaan la kulannay waxay ahayd yani wax murugo badan bay ahayd aad iyo aad murugo badan waxaan u tagnay dadkii horta 3 qol hortood baan la fariisiyay annagoo 49 annagoo 49 qof 49 anigu 49 ahay ayaan la fariisiyay halkaas laba inan oo kale ayaa waxay ka soo dhunteen oo askar ahaa
وإمك هو متكنوليون حسوسته أي واحد نقصور دح لونتين دت كيل الليلي كسور دح بحنو عن نجي نصور دح فريستين إلهي بقى بتبادين دت كيل الليلي محاها المركز هالكي جوجين يالينا أحمد وياهي دت كيل الليلي وحي هاي عسكرتي جاس كواد حالي ماله لقى سوق عادي بحي أي أبدنا دت الشعب نووهلي والله قبطي قار سعودي كيما يكشرين تكسيلين يكشرين dad ordinary maankii suuqa iska joogay ku jireen ayahay marka halkaas ku xidhnaayo halkaas lagu soo xidhay maxaa lagu sameeyay markaas sidee loo dhanayay okay waxa lagu xidhay waxa laga yaabaa ariga marka la dhisay in aragteen ariga marka la dhisayo inaynu aragnay waa de qof kasta Soomaali inuu arkaan malanaya dhabarka la soo saaray wala kala jeediyaa idaa marka la dhisayo tabtaa idaha inta afar xagga loo jeediyo afarna xagga loo jeediyo ayaa حاجة لقول توري أو حرق لقول حرق سلك روبسك حركان واير كأو كلا أي لقول حرقي حاجة ديرو هالشدة لساري حاجة هالشدة يا لساري شري يوم الكتب ترى لا ولا قد توري برام بالغو فري وصون قولي هتنا سديت كلا لساري سديت ذاك هذا نمرك لسودري ولا صون قولي واساسه هذا marka adigu wad arkaysiin idin lama shaad farfadhan oo maalintii ugu horeysay marka waa maalintii ma inta way socotay anigu intaan ka soo gaaran kaadlaya intaan ka soo gaaran kaadlaya waxay bilaabantay maalintii dagaalku bilowday ay bilaabantay way marka anigu intaan ka soo gaaray maalinta sideed baa la isku xiriyay intaan ka soo gaaray marka Nuur maalintii ugu horeysay meel barxada la joojiyay meel barxada la fadhiyo oo qolkii hortooda qolkii dad baa ku jiray dadka kulba qayb la soo saaray baa tirada la soo dadka marka baarkiisa dadka wajiyadooda iyo marka waan arkaynay runtii waxyaabaha magarasa murugada qofka ku abuuri kara waxa kamid ah ee aan xusuusto waxa kamid ah yaani nin la dhulka isla dhacayo la sakraadka ka waraabiyo la xidhayo oo la wadlo loo xidhayo waxa kaloo kamid ah macnaha nin la oran jiray oo aan xusuusto in farax fil oran jiray oo wiiwaan nin la oran jiray walaalayeen reer geesaan oo leh Yusuf Dagayo nin Yusuf Dagayo oran jiray ag fadhiya ayuu leeyahay Yusuf Dagayo hadda diga dambayso caruurtii 150,000 xaaji cali bootaan uga qaad kaas waan xusuustaa waxa kaloo aan ka xusuustaa nin la oran jiray dhabo oo taksiile ahaan jiray taksiile oo aan garanaya anigu oo shaari surwaal jeans gashan oo qosol gariiray isagoo la diblo loo xidhayo iyo qoslaya waxa kaloo xusuustaa nin dhulka isla dhacaya oo la sakraadkayga waraabiya oo dabadna nin Xuseen Cabdulla Ileeye la oran jiro annaga nala xidhnaa uu yiri dhagaca doomo waraabiya biya ma siiya oo dhagaca leeyahay biya siihay macnaha sawirada murugada leeyahay xusi karna kuwaas kamida waan dadka la soo khaarijinay baa dadka la soo khaarijinay marka maalintii goorba halka la idin tobay la ka dhaqaajiyay walaalow waxaan laga dhaqaajiyay saddex horta markay duurkii gaadhay maalintaas duurkii waxa weeyaan 17 June bishu 17 June way 17 June dagaalkuna waa socdaa laakiin aagaan ku xidhan dagaal kama socdo oo halka wax laga ridayo halka wax laga ganayo ganad baa la duqeynaya maalinta ganad ayaa la duqeynaya markaas madaafiicda agteeda laga ridaya askartu agteeda ay tuban tahay waxa qoriya la waxa BKM la sito waxa meesha maray malaynaysid markaas waxa in muruga iyo xusuus mudan yani markii duhurkii la gaaray ayaa nin la oran jiray Saxardiid Maxamed Saciid oo annaga nala xidhnaa odayaasha kamid ahaa oo reer Hargeysa waagaas ahaan jiray ayaa yidhi war inagoo tukanayna dilaani aynu salaada galno salaad baanu galnay dabeedna salaadii aanu galnay duhurkii aanu galnay Axmedow ma u malaynaysaa inaanu saddexii yani goor ku dhaweyd aanu ka baxnay baqasho daraadeed ayaanu ka baxnay saddexdii goor ku dhow dabna saddexdaa markaanu salaadii ka baxnay bal amarka Ilaahay meesha Ilaahay wax ka wado amarka Ilaahay baa iska socda waxa noo yimid in la oran jiray Yaasiin Cambaar oo ay dadku u yaqaaneen dabargoynta Isaaqa iyo wax ay ku sheegi jireen I don't know wuxuu dabargooyay laakiin magaca loo yaqaanay oo Yaasiin Cambaar la oran jiray iyo nin kale oo la oran jiray Khaliif baa noo yimid marka odayaashii reer Hargeysa way wada garteen odaygaas
aad bay u garteen way la hadleen dadna wuxuu yidhi adeer ilaahow Soomaali kala qabooji dhaha buu yidhi adeer ilaahow Soomaali kala qabooji dhaha idinku yidhi anagu nagu yidhi cidina idin layn mayso intiina aan soo gaaray idin laynaysaa ma jirto koob iyo konton baan markaa noqono labaan ugu soo dhuuntay koob iyo konton kayaga idin layn mayso ducaale soray ninkii meesha askarigii ugu sareeyay meeshaas ay haystay ayuu ku yidhi waxaad ii kala qortaa dhalinyaradii waayeel koob iyo kontonkaa qof aan kuugu imaado 5:15 galabnimo 5:15 galabnimo 5:15 galabnimo aan kuugu imaado waay marka 5:15 galabnimo labadii qol baan la kala geliyay qolkii waa laga soo baxay miyaa markaa qolkii waa la xaalufiyay qolkii waa la xaalufiyay taayadii baa soo gashay xaajidii baa la soo agdhigay xaajidii dadka lagu gurayaan la soo agdhigay marka dadkii hore waa la laayay dadkii hore waa la dhameeyay min 8 si la isku xidhay la dhameeyay min 8 si la isku xidhay ayaa la dhameeyay marka saddexdii qol waa faaruq ee waaweynaa waa hoolal waxa dhar yaala Maleelmaysa Axmedow waxa tuutay yaala Maleelmaysa askar bay badnaan sababtay badnaan runtii askartii gaas koowaad xali maalay badnaayeen markaas yani aad iyo aad bay u bixin meeshaas marka saddexdii qol baa qolna la geliyay laba qolna la kala geliyay dhalinyaradiina mid baa la geliyay waayeelkiina mid baa la geliyay askar kale oo dibadda laga keenay oo san lagu soo diray waliba markaas 5:15 buu nagu soo noqday ninkii odayga ahaa 5:15 ayuu nagu soo noqday odayga ahaa 5:15 dibna loo xaadiriyay 5:15 ayaa dibna loo xaadiriyay waay 5:15 gaarigii xasan roobleer kad ayana lagu qaaday gabeedna gaarigii xasan roobleer kad koob iyo konton kayagii qof la saaray dadna waxaan ugu horreeyay magacyada dhalinyarta ugu horreeyay dadna nin baa igu yiri shahaado nuurow waa lagu dilayaa dadna waxaan shahaataan ku yiri dabadna xasan gadlo aan garanay markaas oo ninka gaariga uu toon garanay ayaan ku yiri xasan waxa geena la geenay aad kulli ka warhayo sheekadoodii dadna xuri jeelkii baa la idin geenaya marka ma umaleynaysaa Axmedow inuu jeelku maalinta naruuro noqday marka jeelkii baa naruuro noqday koob iyo konton kayagii markaas jeelkii baa nala geeyay jeelkii ayaa nala geeyay jeelka waxa haystay jeelka Hargeysa jeelka Hargeysa way dagaalku waa socdaa rasaastu jeelkuna furan buska jeelkuna waa furan rasaasta xagga ka soo dhacaysay xaggan ka dhacaysa labadu way isku idaarinayaan hareertana waxa ka jooga difaaco kaariyalba kaga jira hareeraha oo dhan 4 hareerood laakiin daaradiisa qof mari kara marka ma jiro adigu jeelka la geeyay xafiisyadii jeelka markii la geeyay waxaan ugu tagnay nin la oran jiray xareed oo kornay lahaa iyo nin kale oo la oran jiray carab oo isna kornay lahaa markaa saraakiisha meesha jeelka koob iyo konton kayagii markii sidaan loo tiriyay koob iyo konton kayagii markii sidaan loo tiriyay ayuu gartay nin la yiraahdo Yaasiin Ismaaciil Meegaag oo kornay lahaan jiray ayuu gartay ninkii xareed oo idinka oo anaga nala socona xidhnaa imkana Hargeysa joogada aragta laga yaabo dadna wuxuu ku yiri war Yaasiin halkana ma ku xiran tahay SDF-na waad nala joogto waad ku xidhnayd halkana waad ku xirantahay mar walba meel xirantahay adigu already waa garanaa buu inaan leedin haysan dambi inaydan gelin in leedin haysta qabiil waan garanaynaa tan oo kale wayna soo martay annaga reerkayga soo martay buu leeyahay tan oo kale annaga wayna soo martay marka annaga intaan nala joogtaan haddaa tiin maxaabiistii xaggaan looga keenay malka Durdure laga keenay intaan nala joogtaan dhibaato la idin geysan maayo annaguna idin geysan mayno maxaabiistu waxay xaq u leedahay waa idin siinaynaa buleenda lagu bixiyaa jeelka oo galeyda buleenda lagu bixiyaa buleendadaas aan idin siinaynaa caawina bariis iyo shaabaan idin siinayaa buu yiri qolka number 1 kana waa idin banaynayaa daar ah inta kale jiingada ahayd barigaas kala rogan jiingada kala rogan buu jeelku bariga ahaa qolkii number 1 kii baa la geeyay habeenkii baa dabeedna shaahi bariiskii naga dhargiyay habeenkii baan yar nafisnay calooshii yara dhaqaaqday qof bini aadam aan dib ugu soo noqonay noloshii aan waxoogaa yani dib ugu soo noqonay noloshii
waxaad ku hortaa koob iyo konton qof baa markaa tiradii maraysay dhammaan ma dadka Hargeysa iyo Gabiil iyo meelahan kale Soomaaliland laga xulay inba ka koobnadeen mise cid kale ay idinku jirtay axmedow wallaahi horta waxay u badnaan dad reer Gabiil dad reer Hargeysa laakiin sheelka gudihiisa waxaan ugu tagay oo qolka nagu xiga ku jiray inaan ka mid ah dadkii wadanka joogay ay ka soo jeeday macnaha dawladda ay yani xigta ka dhiganaysay dawladdii markaa jirtay oo diiday dagaalka inuu galo ayaa ku jiray jeelka ugu tagnay askari waxa markaa asma Soomaali caadi ah qori baa loo dhiibay dadka inta laga saaro dadkii qoriyaa loo dhiibay diiday isagu markaa oo uu yiri dadkii aan la noolaa anigu la dagaalan maayo dadkii aan wada nooleen la dagaalan maayo ninka magaciisa ma xasuusataa ninka magaciisa waan ka xumaay ma xasuustaa xudow aad baan uga xumaay aad ma xasuusto laakiin in sha Allah waan soo heli doonaa waa hagaag qaybta hore ee barnaamijkeenan waayihii iyo duruufihii adkaa ee Nuur Ismaaciil Xirsi kala kulmay xabsigii jeelkii nabad sugidii gurigii qaybta iyo jeelka weyn ee Hargeysa oo intaas oo dhan ku xidhnaa intii uu socday dagaalkii 88kii oo dhan intaasaan kusoo gabagabeynaa qaybta hore qaybta labaad ayaynu ku eegi doonaa bal jeelka iyo waayihiisii iyo wixii halkaa kala kulmay iyo sidii uga samata baxay markii dambe barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh